SSC sanad dagaal socday waa ku dadaalay imtixaanaadka iyo ardayda ay imtixaanka helaan gaab waa jiray laakiin waxaan isleenahay boqolkiiba waa la gaaday in ardaydu ay imtixaanaadka gasho labadii sano ugu dambeysay waxaa muuqataa inay fursaddiidana ay u weynay kuwii mas-uuliyiinta qaadayna ay gabayn waxa aad nasiib darro sanadkii hore waxaba macmaceen layaxaab baa laga keenay oo ardaydaasi shahaadooyin iyo jaamacado iyo scholarships intaba furaskeena ahayd ay ka qadeen sanadka hoggaankiida durbaan iyo calaamasaha xasan sheekh iyo xisbi la galo iyo khadimadakeeda leeyahay war haddii 3 sannadood deegaanadaas ay ku dhacday gaab waxbarasho iyo arday mustaqbalka goorma laga soo qaban karaa hadday siyaasaddu wareerto hadday taladu khaldanto khasaaraha ugu yara la gaari karaa waa taas waxaan ogaynaa wax kasta oo deegaanka waxbarashadiisa lagu horumarin karo waxaan degmada talaadkeliya waa ilaa 3 milyan iyo wax degmadaasi ay leedahay waxbarasho waxaan aynu haynaa 7 milyan oo waxbarasho oo ay gobolkaasi degmadaasi leedahay soo maxaanu haynaa mashaariic kale duruuftu waxay ku kalifi doontaa wixii kale aan ku hadlaynay inaan waxbarashada ku hadlayn wasaaraduna way amran tahay taas ay sabab tahay oo mustaqbalka ugu weyn ee aan la siyaasadayn karin lana ilaalin 3 sannadood gaabka waxbarashada ay muxuu noqonaya waxaan leedahay xasuuleeyahay khasaaraha ugu yara hadday siyaasaddu wareertaa waa taas waxaan la jeenaynaa waxbarasho socday mustaqbalka iyo siyaasadda si saxa loo socdo bal hogaankana laga fakaro laakiin hadday waqti kale bahashu sii socoto wareerto waxaa dhici karta waa khasaaraha ugu yara ee la qaban karo caalamka taga dowladda qabay imtixaanku waa inoo furan yahay ardayda ahaas gaabkii ku dhacayna waxaan rajayn doonaa mar wixii laga qaban karo wixii diyaar waa insha allah imtixaan in loo daboolo wasaaradda waa amraynaa imtixaan loo diyaariyo meelihii ardaydaas ku geli karaanna insha allah lagu galo ay sabab tahay waa ka naxaynaa wayna danqaysaa kama aamusi karo muddo wax ka aamusnayn maana jeclayn inaanu deegaanadaas aanu ka hadallo inta maadaama talooyin badan iyo wax badan oo ay waayeel gacanta ku hayaan ama dhaqan ha noqoto ama leeyihi siyaasadaha aan talahaan sugayna ay jirto marka insha allahu imtixaanku waa maanta waa inoo furan yahay